Assalaamu calaykum masaatan ku xiran barteena youtube-ka telegramka waa anigoo Shafii Daawud. Maanta waxaan falaqeynaynaa Bon GPY. Bon GPY sidaa la wada socotaan isbuucyada deertan la soo dhaafay waxay ahayd uptrend oo buy ayay ku jirtay. Isbuucan hadeerta soo socda waxaa la filayaa in ay soo daadato. Hadeerta markaa geeno time frame-ka weekly oo kaleeto waxaa arkaysa in rejection lasoo siiyey. oo hadeerta waxaa arkaysa in rejection lasoo siiyey. Rejectionkaas lasoo siiyey waxaa cabiranaysaa boodiga meesha uu ku xirmaday. Marka aad cabiratid waxaa arkaysaa meesha laga celiyay inay tahay reason adag oo resistance oo kasoo daadan karto. Candle-kan hadeertan u dambeeya oo buy-ga ah asne rejection ayaa lasii doonaa oo waa la celi doonaa. Sidoo kale markaad sii geysid taamada yar oo kaleeto 4 hour oo kaleeto waxaa arkaysaa in tusaalahaan oo kale hadda markii 4 hour oo kale ay sii geeno waxaa arkaysaa in hadeertan jad button oo kaleeto ay samaysay oo double top ah. Markaad cabiratid oo kaleeto double top-ka oo kale hadda markaad cabiratid sidoo kaleeto xitaa waxay samaysay rejection ayay samaysay oo hadeertan markaa kuwa calaamaday oo kale candle rejection ayaa la siiyey. Sidoo kaleeto candle sell ahna waa ay samaysay. Hadda waxaa la sugayaa in ay toos u daadato. sidoo kale hadeerta waxaa ogtihiin in lacagaha kaleeto oo GBP si Bon USD oo kale in ay daadato jimcadii si fiican u daadatay. Badanaana horta waa isku dhaqaaq 6 GBP Bon USD, Bon JPY, Bon CHF, Bon CAD iyo Bon Australia iyo Bon New Zealand. 6daasi lacagood badanaa waa isku dhaqaaq mar kala jihan yihiin way jiraan oo ama Bon JPY oo kaleeto mar maxaa lahaa Bon USD oo kaleeto ayadoo sell Bon JPY oo kale ay buy aado. Marka balse laakiinse badanaa waa isku dhaqaaq. Sidoo kaleetana waxaa ugu dhaqaaq badan Bon Australian iyo Bon New Zealand ayaa ugu dhaqaaq badan. Sidoo kale waxaa soo raaca Bon USD iyo Bon CAD iyo Bon JPY. Marka hadda markii hadeertan Bon JPY oo kale aad fiirsid 4 hour-ka waxay ku samaysaa ku dhahay maxaa lahaa double top oo sidoo kaleeto candle confirmation ay ku samaysay oo rejection ah iyo sidoo kaleeto candle sell ah uu ku sheegay in qiimaha oo daadanayo. sidoo kale weekly-gana markaad joogtid waxaa ku tusay in lacagtii candle rejection ah ay samaysay oo meesha oo rejectionka candle-ka boodiga ugu xirmadan ay tahay meel adag oo resistance ah oo laga celi karo reason adag ah. Sidoo kale waxaa sii geysanaysaa maxaa la time frame-yada yaryar ayaa sii geysanaysaa si aa usii ogaatid lacagta structure-yada ay samaysay. Hadda markaad timaadid oo kaleeto maxaa lahaa 1 hour oo kale horizontal-kan oo kale waxaa kasoo saaran weekly ayaa kasoo saaranay. Marka waxaa sameynaysaa hadeertan markii 1 hour oo kale aad timaadid waxaa arkaysaa in uu ku saarmo trend line oo uptrend ah. sidoo kale hore waxaa kugu sheegay mar walbo trend line-kaaga si saxan aad u saaratid waa mar walbo entry saxan aad qaadatid. marka trend line-kaaga sidaas aad u saaratid waxaa arkaysaa in laga celiyay kow mar 2 mar markii saddexaad hadeertaana laga celiyay. Hadda marka waxaa sugaysaa sidoo kaleeto trend line-ka mararka qaarna confirmation uu ku noqdaa oo tusaalahaan oo kale candle-iska keliya confirmation uma isticmaali kartid. hadda trend line-ka kale confirmation waxa uu isticmaali kartaa. hadda waxaa sugaysaa inta trend line-kaagaas la soo jibinayo. markii trend line-kaagaas la soo jibiyo and then sell waa u qaadan kartaa oo candle pure oo sell ah oo ku xirmado candle-ka oo trend line-kaagiina la soo jibiyo markaas sell waa u qaadan kartaa. sidoo kaleeto maxaa lahaa hadda waxaa macquul in dib iskaga noqoto kor aado inta aad sugaysid inta trend line-kaasi ay soo jibinayso inta aad sugaysid waxaa laga yaabaa in ay korkaasi aado. marka haddii hadeerta meeshaan aad sell clear ugu qaadatid waa risk waaye oo maxaa lahaa korkaas way aadi kartaa sidoo kaleetana way kuu soo daadan kartaa. balse laakiinse waxaa fiican inaad sugtid inta ay kasoo jibinayso trend line-ka. markay trend line-ka soo jibiso oo candle pure oo sell oo 1 hour-ka ay ku xirmado candle kale oo bilaabanaya sell waa u qaadan kartaa ilaa area-daasna waa ay soo taabanaysaa isbuucan ilaa 148 147 waa ay tagaysaa. markaa sidaas trend line-kaaga u saaratid sidoo kaleeto xitaa waxaa arkaysaa in maxaa la 30 minutes oo kale markaa sii geysid
in ay sameyneyso maxaa la dhahaa down trend oo hadda markaa cabiratid oo kaleeto trendlinekaaga maxaa la boodigan oo candleka boodiga waa saari kartaa ama wiig oo kale waa saari kartaa hadba meeshuu kugu qurux badan yahay marka hadeertaa sidaas u saaran trendlineka hadda waxaa arkaynaa in oo down trend yahay hadeertaan bonjb waa meesha ay mareysana ay tahay trendlineka balse laakiinse confirmation fiican oo kusoo dhici karto weli maysan sameynin marka hadeerta waxaa suganaysaa bonjb inta ay maxaa la ay kasoo jibinayso trendlinekaagan oo 1 hourka aad kasoo saaratay marka ay soo jibiso oo bullback ay ku sameyso then markaasi sel waa u qaadi kartaa ilaa iyo areadan aadoo tb-ga ka dhiganahay toos ay u gaaraysaa sidoo kaleeto hadeertaa bonjb waxaa kuu sheegay maxaa la lahaa confirmation badan oo ku dhici karto ayaad haysataa oo weekly markaad joogno waxay sameysay candle rejection ah candle rejectionkana wuxuu ku xirmadaa ku dhahay rezone adag oo resistance ah markaan imaano 4 hourka oo kaleeto sidoo kale waxay sameysay double top sidoo kaleetana candle rejection ah oo 4 hourka ayay sameysay oo qiimaha in uu daadanayo sheegay sidoo kale candle selana waa ay sameysay oo lacagta waxaa laga sugaa in ay daadato markii 1 hourka aan imaananay sidoo kale waxaa arkaysaa in maxaa la trendline oo kuu saarmo trendline ayaa kuu saarmaya markaa 1 hourka timaadid oo uptrend ah waxaa suganaysa ha ku dhahay sel ha uu gelin sugo inta ee trendlinekaasi ka jibinayso trendlinekaasi markay jibiso clear sel u qaado sidoo kale confirmation u dambeeyana waxay tahay in ay sameysay maxaa la structure down trend ah oo 3 taabasho ayay sameysay oo qiimaha oo laga rabo in ay daadato marka bonjb waxaa laga sugaa in isbuucaani ay daadatabo lacaga kale gbp-yada waa ay daateenbo sida hadda bon usd oo kaleeto bon ncd-na waa ay daadatay sidoo kaleetona waxaa laga sugaa in ay sii daadatabo marka bonjb sidaas ayaa macquul ah sugo inta ay ka jibinayso trendkaas marka ay jibiso clear shell u qaado adigoo tb-gaaga ilaa iyo areadaas ka dhigi karabo ama meelo u dhow oo kaleeto ay gaari karto tusaale ahaan oo kaleeto boontigaas oo kale 149 oo kaleeta marka stop losskaagana aad ayuu yaraana oo konton dib camal ka dhig marka waa maasatihiin sidaas ayaana macquulay bonjb isbuucan in ay daadato ayaana la filayaa